muuska laba qayb aan u kala qaadno waa mid muuska qaybta la cuno waa qaybta hadeertaan oo bini'aadanka aadka uu isticmaalo adduunka qaybihiisa kala gedisan dadka ku nool oo dhan aad u isticmaalaan oo marka ugu horeyso wax walba ilaahay keenay nafci gooni ilaahay u sameeyay horta waa lagu baahi baxaa qofka baahi hadduu gaajoodo waxa waaye hadduu uu cuno waxa uu ku baahi baxaa wata kale marka waxaa ku dheehan marka isaga nafaqooyin aad u tiro badan oo macaadinta ay ugu badan yihiin sida magnesiumta iyo potassiumta laakiin wax calcium ah iyada ma ku jirto cholesterolka ma ku jirto waxa kale oo ku badan vitaminiska A B especially B6 iyo vitamin C so intaas ka sokow marka waxay qabtaan iyaga marka mid walbo oo nafaqooyinkan ka tirsan shaqo gooni oo jirka bini'aadanka ka qabtaa haddaan tusaale u soo qaadana marka magnesiumta oo kale waxay ka qayb qaadataa in nervous systemka mise magaciisa dareen wadka bini'aadanka uu aad u saacido oo qof mar walba marka uu noqdo qof alert inuu noqdo hadii muuska cunitaankiisa uu badsado qof markaas xitaa hurdadiisu markaas aad u hagaagto wuxuu noqon karaa qof xitaa markaas magaciisa qof hadii hurdadiisu ay badatana qof oo markaas xitaa dhiig karki iyo waxa soo dhan oo kaga badbaada muuska wuxuu daawo u yahay sokorta gaar ahaan nooc la yiraahdo diabetes 2 oo inta badan adduunka markaas dadka odayaalka ku dhaco marka iyadan marka waa lagu daaweeyaa qofka hadduu isticmaalkiisa badsado caafimaadkiisa dhinaca sokorta marka waxa waaye wax badan ay ka tari kartaa muuska wuxuu kale faa'iido u leeyahay orodada dadka orodada ah dadka orda wuxuu ka qayb qaataa marka muruqa xanuunka qofku markuu ku dhaco markuu soo ordo oo kale muruqa xanuunka markaas inuu ka baabao oo mise muruqa xanuunkan waxa keenay waxa muruqyada markaas kuusma soo muuska wuxuu baabi'iyaa marka kuuskaas uu baabi'iyaa wuxuuna markaas dabar tiraa markaas magaciisa muruqa xanuunka markaas qofka ku dhici lahaa markuu u soo ordo maskii oo soo alaminteeyo muuska waxyaabaha kale oo faa'iidada bini'aadanka uu ku sheego waxa kamid oo culimadu ay ku sheegto waxa ku jirto dhiig karka naftirkiisa in lagu daaweeyo soo qofka hadiiba dhiig karka inta badan sokorta iyo dhiig karka waa israacaan qofka hadii marba sokortii uu ka daaweysmo inta badan ma u imaato marka magaciisiga dhiig karka ma u imaato isoo cholesterolka awalba ku yaraa dhiig karka sokortan daawo aha marka total labadaba waxay ka saacideen marka in oo inta badan oo qofka sokortu dhiig karka uusan ku dhicin marka talafaha marka la fiiriyada bini'aadanka lafiisa waxa u badan oo ka samaysan waa calciumta iyo magnesiumta especially calciumta muuska total calcium ku jirto laakiin maadooyin kale ayaa ku jira oo ka saacidayo qofka markuu cuno in ay soo nuugto calcium badan oo jirka ku jirto inay soo nuugto markaas lafaha lagu soo daro soo lafaha waxa waaye daawo u yihiin especially ilmaha markay yar yihiin waxa waaye waxay u noqonayaan markaas xitaa in lafahooda iyo koriishahooda markaas ay ka saacido ilmaha yar xitaa waxa waaye oohinta badan kuwa hataa oo magaciisiga oohintooda badan tahay xitaa hadii muuska cunitaankiisa uu aad markaasi oo loogu badiyo oo inta loogu talagalay la siiyo waxay noqonayaan xitaa markaas in nasiinadooda ay fiicnaato oohinta xitaa ay ka yaraato hurdadoodana ay badato marka celis ahaan waxa aad u roon qofka intuu raashinka uu cunayaba in hal xabo calal aqal inuu ku darsado inuu la cuno mise xitaa markaasi in gadaal uu ka cuno taasi waxay dhimi kartaa marka qofka xitaa cayilka qaba xitaa markaas ma mise cunitaanka badan xitaa jecel ilaa cayilka waxa keena waxa qofka raashin badan inuu cuno soo qof markuu in yar cuno oo muuska ka daba geeyo muuska wuxuu sameeyaa caloosha inuu ku fido xitaa marka soo waxay ka kaalmeynayaan marka caloosha inuu u buuxsanaato oo maskaxdii dhan markaas ay qaadato in caloosha u buuxsan tahay qofka marka cayilkii uu ka qaadi lahaa cuntada iyo faatiskii iyo duxdii kale ka soo bixi lahayd markaasi jirkiisa ma galayso marka wuxuu noqonaa markaasi qof xataa ku control markaas dhinaca cayilka xataa markaas uu controlo marka tan inta badan Soomaalida horta oo ay sheegtaan waxa way muuska in goryaanka uu sababo taasna waxay aad waa fikrad anaga Talyaaniga iyo dadkan kale ajaanibta aan ugu beereen waa sida hadeerta aniga aaminsanahay laakiin wax la cuno waxa ugu fiicanaaba lagu tiriyaa muuska in dhakhtarkii uu dhaho muuska magaciisiga goryaano ku keena ay calool weynaya laga qaadaa at the same time haddana isla dhakhtarkiina haddana isaga qadadiisna uu ku cuno oo dadka ganacsatadiina oo dhaqaaleeyaan ay dhoofiyaan dadka masaakiinta soo saarteen oo beeraleyda ahayn marka oo magaciisiga oo laga mamnuuco oo laga dhaadhico fikirkaas waa fikir qaldan
totally muuska wax dhibaato gooni hadeertan uu leeyahay male wali waxaaba lagu tiriyaa kuwa ugu caafimaadka qaba marka la fiiriyo dhinaca cudurrada sababtoo ah dalagyada kale sida yaanyada oo kale markaa fiirisid iyo cambaha ay qubkooda aad u khafiif u yahay soo dalagyadaasi inta badan waa la soo buufiyaa oo maadooyina lagu soo buufiyaa suma markaas cayayaanada iyo cudurrada looga difaaco soo muuska wax la buufiyo waa qaybta kor waa la iska qaadaaba marka mar haddii la iska qaadan marka xoogaa inta u gudbayso gudaha waxay noqon marka aad u yaray noqon oo caafimaadka markaas dhibaato aan u keenin sidiis kale wax kale hadeertan dhibaato kale uu leeyahay oo lagu sheegay ma jirto laakiin wax walba haddana waxaa roon inta loogu talagalay markaas in la qaato oo dhexdhexaad laga ahaado marka oo aan la isku tiri badanin marka